idaye markii hore sidan kaaga dabadacay doorsoomay daraada dadku waylayaabaan. Assalamu alaikum my friends. Kusoo dhawaada casharkii sagaalaad oo ku saabsan barashada kombiyuutarka oo basiga. waa casharkii sagaalaad isla markaana waa casharkii adigu afraad oo ku saabsan wordka qaybta wordka. waxaan casharadii hore ku diyaarin jiray word 2010 ah. iminka 10 waa laga baxay, waxaa la marayaa 13 iyo 16 iyo markaa waxaan 13 ka u bedel. codsiyadana saasay u dhignaayeen badankoodu. okay, markaa bal casharkeenaba aynu hore ka bilownin. sida introduction ku qoran bin maanta intaynu ka hadlayno waxa weeye waa intaas sida loo save gareeyo waan ka soo hadalnay, laakiin documentkaaga sida password ugu xiran lahayd, sida aad macnaha passwordka si fara badan xitaa qaybo kale sidii kale leh, sidaas qaybahaas markaa iyadana imika ka hadlaynaa. okay, markaa soo dhawow bal ku soo dhawaada casharkan qiimaha leh. okay, documentiga aan qorto halkaas aan cashar ku qortay imika. waxaan qortay intaasaan qoray kusoo dhawaada cashar ku saabsan kombiyuutarka. okay, intaa markaan qoray aan farta waaweynayo marka hore halkaa waanageeda ka tusay sida loo waaweynayo. okay, midabkana i hagaaji taas tag. fartan lagu faraha u jecelahay axyaaray baan tusayaa. kawriniyo baa la yidhahdaa fartaa weeye. fartaas farahagu anigu aan ugu jeclay aad. okay, saasaad casharkii u qortay marka hore. casharkii kaas ayuu ku yahay. markuu kaasaas casharkii ku yahay sidee password ugu xiran lahayd kasoo qaad. waxa weeye documenti weyn weeye aynu sii koobiyeyno. waa waraaqda documentiga faraha badan leh. okay, waxaad tegaysaa halkaa file ku qoran tahay save as ayaad tegaysaa. save as waa aniga hore kugu soo sheegay casharadii kan ka horreeyay inay kugu weli waxay kaga duwan tahay 4 shaqo ayay save kaga duwan tahay. marka iyada 4 shaqo 2 shaqo ka mid ah imika halka ma ku tusayaa. save as baad dooranaysaa ii save garay xagga lagu dhigayo ayaad dooranaysaa. Paros baad dooranaysaa hadduu yahay Windows halaya Microsoft Office-ka kugu jira uu 7 yahay ama 10 yahay wax aad u yar ay ka kala duwan yihiin waad ka fahmaysaa markiiba. maxaan kugu warisaa documentiga iska save garan markiiba aad halkan ka bedelin oo aan oranin ka dhigin 2097 ilaa 2003 adan ka dhigin markii wax iska bedelin. tools baad tagaysaa si aad password ugu xirato. general option ayaad ka dooranaysaa. maxaa kugu dhahda tools tag general option kasi doono. okay, markaa kasi dooratid halkaa passwordkii ugu qor waxaad doontada ayaad ka dhigi kartaa. Somaliland ba ka dhig. enter baad taabanaysaa way ku leeyahay ku celi. wakaas meeshii aad rabtay ayaad dhiganaysaa marka. markaa save garay waxaan ku save gareeyay imika desktopka muraayadda ayaan ku save gareeyay. okay, muraayadda ayaan rabaa inaan ku save gareeyo. okay, iska xidh halkan imika plasar close. marka aan imika iyada iska xidho ayuunbuu kuu hagaagayaa. marka haddii uu hore kugu furaa dee way iska adag tahay si kuugu hagaaga marka horeba, waayo wuu hore kuu furaya marka ammaankiisi ma sugna. kombiyuutarkaaga ammaankiisi markaa ama casharka aad qoratay ammaankiisi siisaba ma sugna. marka si aad uga badbaadid inaan ku furaado marata passwordka ay markiiba ku weydiinayaa passwordkii geli. okay, marka waad akhrisan kartaa waxna waad ka bedeli kartaa. okay, qaab labaad ayaa jira oo kan ka gedisan. wuxuu yahay qaabka labaad. qaabka labaad muxuu yahay? casharkii baad halkan ku qoratay. casharkaaga waa kaa. waxaa la rabaa casharkaaga kaliya inaad password in la akhriyo kaliya ku qoratid.
waxaan ku yiri waa la koobiyeysan karaa laakiin waxba laguma kordhin karo waxna lagama bedeli karo dadka buugta qora ayaa inta badan isticmaala markay meelaha gelinayaan waxna lagama bedeli karo waxna laguma dari karo si dadka aflagaadooyinka buug waxyaalaha ugu khatarsan waxa kamid ah dadka buugga qoratid oo kale ayay wax ku bedelayaan oo markaas ay wax ku kordhinayaan waxna ka dhimayaan marka ma taas ma dhacayso buuggaagi sidiisii weligiiba ahaanaya okay haga tagaysaa save file bad ku noqonaysaa save as ay tagaysaa okay waa shaqadii labaad marka hore maxaan ku wiri halka hay laaban weliga 2003 ka dhig okay tools kii ku noqonaysaa general option kii baad ku noqonaysaa halkan ayaad oranaysaa Somaliland ka dhig halka ayar calaamada tigta ayaa saaraysaa read only waa in la akhriyo kaliya way password ku celiyo ku leeyahay okay marka imika waxa weeyaan password waa kugu xiran yahay meesha aad dhigi lahayd dooro desktop-ka noo dhig waxaana ka baabi waxa weyn ugu qor si aanu inooga halaabin effects tags will be removed waxaan oo dhan ay hore nagu qoraa laga tuuraya buu ku leeyahay bal okay continue da okay soo furo bal imika okay muxuu furmaayo walad bal halkan ku noqo iska soo xidh okay waxaan filayaa xoge cilad computerka ah inay ku jirto laakiin hore uu kaaga furmaya adiga imika wakaas hadduu hagaagay wakaa casharka wakaa wuxuu ku leeyahay password gali hadda waxaad oran kartaa passwordka waad iska din kartaa waxa weeyaan read only ayaad oranaysaa marka waad akhri karaysaa imika waxna kuma dari kartid waxna kama bedeli kartid laakiin you can copy waad koobiyeysan kartaa laakiin waxaan ku dari karaa male bal imika xaggan kaga daraa ma bale meel lagaga daray barata kaasina waa kaa waxaan rajeynayaa kaana inaad aad uga faa'iiday okay waxaan ugu xiga casharka sidee loo soo furtaa ama documenti baad qortay documentigaagii aad qoratay sidee baa loo soo furaa oo waxa weeyaan sidee loo soo furaa macnaheedu maxay waaye waxa weeyaan waa inaad documenti hore aad u qoratay sidee loo soo furtaa open ama aad u soo furan kartaa qaybo badan ayaa loo soo furan karaa oo ilaa 6 gaaraya midda koobaad waxa weeyaan waa adoo taabta control xagga ma dadku inteeda badan uma yaqaanaan control-ka control iyo n bas ku taamaysaa waa control plus new marka may sorry raali hada control plus new maha control plus new waa marka cusub soo furanaysid page cusub furanaysid laakiin waa control plus open open waa taas control plus open oo taabta ooda weeye okay taabo control plus o hal mar ayaad isleeganaysaa si aanu kaaga xumaan waa kaas wuxuu ku weydiinayaa kuwee rabtaa inaad soo furatid haddii aad halkan sii had kuwii hore ee imika kuu furaa waa kuwaas xaggaas ayaad ka helaysaa haddii aad rabto inaad computerka ka soo qaadid dhexdiisana halka computerka ku dhufatid ayaad barrows sii oranaysaa barrows ayaad tegaysaa okay barrows markaad tagtid ayaad soo furanaysaa kii alla kii aad rabtid ee halka kugu jira isna qaybtaasina waa sidaas open baad ku dhufanaysaa halka waata open ku qoran laba mid ayaa soo furan kartaa inaad open tiraahdo oo caadi open kaliya u tiraahdo iyo inaad read only inaad akhrisid kaliya u soo furatid iyo inaad as copy adoo copy aad u soo furatid saddexdan qaybood baa loo soo furan karaa qaybtaasna waa qaybta oo iyada open waa saas ku fahanteen okay qayb labaad ayaa jirta waa inaad halka tagtid calaamada yar oo aad tigta saartid open kadib markaad tigta saartid open waa inaad iyada ku dhufataa calaamada yar open sidoo kale halka waa inaad dariiqiisii raacdaa halkii ka soo qaadaa documentiga aad rabtid inaad furatid oo open ku dhufataa qaybtaasina waa qaybtii labaad okay qayb saddexaad ayaa jirta waa inaad file-ka tagtid open tagtid soo furatid oo sidoo kale halkii u sii raacay dariiqi waxaan oo dhan waa isku mid adiga hal mid oo kaliya ayaa kaaga furan okay qaybta kale waxa weeye inaad taabatid
alta marka taabatid waa inaad 5 taabatid 5 taabatid markaana wuu soo furmayaa halka weeye waa ka marka sidii loo soo qaadaysaa ka saymas 6 waa isku mid laakiin adiga mid un baa kaaga filan wax ay ku tariso kala mal okay qayb lixaad ayaa jirta qaybta lixaad maxay waay waa inaad alta taabatid oo f ka sii dooratid oo o ka soo dooratid waa saddex qaybood oo marka ka sii dooratid xitaa z baad ka sii dooran kartaa b baad ka sii dooran kartaa kadibna markaas ayuu ku soo furayaa mid khalkhal maya caadi iska dhig ma adka aan kugu celiyo taas okay alta bal la fahmaya halka ku taalo alta bal la fahmaya alta waa taas halka ku xigtay marka alta iyadu waa qaybtaas okay alta waan taabtay alta marka aad soo taabatid maxaa ku soo baxay adiga alta taabo f2 waa file bay u taagantahay halka khalad file markay u taagantahay o open wata u taagan soo furo okay hadda computer ka rabtid oo computer si dooran lahaydna c taabo haddii qaybahan oo dhan si kala lambarka u leeyahay soo furo hadba qaybta ku dul magaca ku qoran laakiin marka b baad rabtaa browser taabo b-da markaas ayuu ku geenayaa meeshii aad rabtid kala soo baxaysid waa 6 qaybood oo iyadana loo soo furto documenti hore kugu qoraa ama documenti aad save gareysatay oo maxay ahaa mar hore aad diyaarsatay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday casharka mar rabo inaan saa u sii dheereeyo fadlan share garee haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe casharka saar haddii aad ka heshay wey haddii aadan ka helin fadlan sheeg aan iska daayay mahadsanid doogti jacaylka igu sii duxayso dabka igu shidmaya dareemaa jidhkaygu doogti jacaylka igu sii duxayso dabka igu shidmaya dareemaa jidhkaygu